آمنة محمد سعيد oo ah haweeney ku dhacay xanuunka kansarka horena xaaladeeda laga baahiyay maqal arag ku sheega Somsat ayuu xafiiska Somsat burco gaarsiiyay deeq lacag ah oo ay soo direen samafalayaal Soomaaliyeed gaadhaysana $1580 waxaana lacagta gudoontay cibaado Saciid Cali oo ah hooyada haweeneyda xanuunsanaysa muxsiniin ku nool caalamka markii ay arkeen xaaladeeda caafimaad iyo sida ay u ildaran tahay u soo direen lacag markii ay ka naxeen xaaladeeda caafimaad iyaga oo ku rajo weyn in intan yar ay soo dirayeen ay wax ka tari doonto xaaladeeda caafimaad Amina Maxamed Saciid ama Amina Ubarre Saciid waxa naloo ku soo diray hadaanu nahay xafiiska TV-ga Somsat uu ku leeyahay magaalada Burco lacag dhan $1580 oo ay soo kala direen dadkan kala ah si aan u faahfaahiyo waxa soo diray lacagtan Foosiya Ahmed Liibaan ayaa soo ururisay $280 طبعا waxaan ku horeynayaa dalka UK ama boqortooyada midowday gaar ahaan magaalada London ayaan ku horeynayaa waa Foosiya Ahmed Liibaan ayaa iyada iyo qeyrkeed ka soo qaaday lacag dhan $280 Leila waxay soo dirtay iyaduna London bay ku nooshahay waxay soo dirtay $200 Sacuudiga hadaan u gudbo gabadh sheegtay oo aan magaceeda hadda ilowsanahay oo telefoonka igala soo hadashay igu tiri Ummu Hebel ayaa nahay way xasuusan doontaa insha Allah markay aragto ayaa waxay soo dirtay $100 ayay soo dirtay intaas waxay isku noqdeen $580 ayay isku noqdeen waxaana laga soo kala diray UK iyo Sacuudiga haddii aan u gudbo xagga Sweden oo lacagtii ugu badnayd laga soo diray lacag gaaraysa $1,000 ayaa gabadh magaceeda la sheego iyadoo aan ila soo hadalo la yiraahdo Foosiya Cabdi Xoosh markii ay aragtay xaaladda Amina Ubarre Saciid markii ay ka naxday ilmaysay u kacday u istaagtay dumar Soomaaliyeed oo ku nool ku dhaqan dalka Sweden oo ay garanayso ayay lacag ka soo ururisay lacagtii ayaa gaadhay $1,000 gabadhan Soomaaliyeed ee muslimada ah ee la yiraahdo Foosiya Cabdi Xoosh ayaa waxa u dhalatay magaalada Caabud Waaq Amina Ubarre Saciidna waxay u dhalatay magaalada Burco waa gabadh xanuunsanaysa taasina waxay muujinaysaa islaamnimadu inaanay deegaan lahayn inaanay abtisiilan lahayn inaanay qabiil lahayn ay tahay qofka muslimka ah inuu muslimka kale inuu ka nahayo runtii waan uga mahadcelinaynaa magaceeda ma sheegin in la xuso waxa lacagta soo dirtay oo ay ku soo hagaajisay Maryama Maxamed Ismaaciil oo iyaduna ka qayb qaadatay $1,000 oo qayb ku leh iyo haween dumar badan oo aan magacooda halkan ku koobi karay lacagtu markaa waxay isku noqonaysaa $1,000 ee Sweden laga soo diray iyo $580 laga soo kala diray UK iyo Sacuudiga ayaa waxay isku noqonayaan $1,580 ayay naga gudoomaysaa Amina cibaado Saciid aan dhaade cibaado naga gudoon waan ka gudoontay lacagtii ku soo hagaajiseen Cabdimaalik Muuse Aldoon waa ka gudoontay idinka iyo isagaba waa mahadsantihiin waa lacagtaas oo dhan tirada $580 waan ka gudoontay waanan idin soo dirayaa duco ballaaran ayaan idin soo dirayaa idina iga gudoonta ducada ilaahay khayr iyo xasanaad ha idin siiyo ilaahay cadaabaha qiiqaaya Allah idinka nabadgeliyo wali Amina Saciid waxay u baahan tahay walaalaha muslimiinta ee Soomaaliyeed inay soo taakuleeyaan si loo gaarsiiyo meelaha lagu tuhunsan yahay caafimaad xaaladeeda caafimaad waa mid maalinta ka dambaysa ka sii daraysa una baahan in wax laga qabto Cabdimaalik Muuse Aldoon Somsat Burco